Salaamullaahi saaxiibayaal soo dhawaada maanta waxaa miiska inoo saaran qiso aad u cajiib ah. Barnaamijka intaanu guda galin waxaa idinka codsanayaa muuqaalka inaad like saartaan siina share garaysaan si uu u gaaro saaxiibo badan. Maalin maalmaha ka mid ah waxaa jirtay boqortooyo oo ay ku nooleed gabar aad u qurux badan balse loo yaqaanay boqoradii habaarneyd. Dadku waxay sheegeen in la xiray iyada oo ay xidhay haweeneyda ah oo daasoon iyo kuwa duurjoog ah. Warku si degdeg ah ayuu meel walba ugu faafay. Maalin maalmaha ka mid ah warkii waxa uu gaaray tuulo, taasoo keentay in dadkii deegaanka oo dhan ay ka dhiidhiyaan. Waa maxay amiiradii habaarneyd ee ku xiran xabsiga? Waxaa la yidhi haddii aad halkaas aadi karto oo aad ka gudubto 3 tijaabo ee islaanta duqda ay kaa qaadayso, qofkii ka gudba kadibna badbaadiya amiirada quruxda badan waa uu guursanayaa, waxa uuna noqon doonaa milkiilaha boqortooyada. Laakiin haddii uu awoodi waayo, waxa uu la kulmayaa cawaaqib xumo. 3 caqabadood ayaa dhammaantood ah kuwo aad u adag. Dhammaan raggii meesha tegay kuma aysan soo noqon. Warkii waxa uu gaaray wiil lagu magacaabo Cali. Cali waxa uu la noolaa aabihii iyo walaalkii ka yaraa Maxamed. Guri yar ayay ku wada noolaayeen. Labada walaalo aad ayay u kala duwanaayeen. Halka Muha uu ahaa nin howlkar ah, naxariis badan, uuna caawin jiray aabihii. Cali waxa uu ahaa mid caajis badan oo naxariis daran. Aabihii ayaa ku yidhi Cali, halkan kaalay oo gacanna sii. Walaal, haddii aad shaqayso waan hubaa inaad farxad badan dareemi doonto, ayuu ku yidhi walaalkii. Aabe, looma baahna inaan sameeyo waxaana waxtarka lahayn, kaliya ha ku caawiyo Muha. Waan bixi doonaa oo aan ciyaari doonaa in muddo ah. Waxaan hubaashii ahaan doonaa mid badbaadiya amiirada oo aan ku guursado halkan si aan u noqdo boqorka dalkan. Markaas noloshaydu waxaa ka buuxsami doona dahab iyo lacag iyo awood. Markuu guriga ka soo noqday, Cali aabihii wuxuu u sheegay wax walba oo uu soo maqlay, isaga oo ka baryaya aabihiis inuu u oggolaado inuu aado xabsiga si uu u badbaadiyo amiirada. Kadib markii uu maqlay aabihii wuxuu aaminay Cali, wuxuu siiyey faras iyo seef kaliya oo guriga u yaalay si uu u soo badbaadiyo boqorada. Cali oo leh dabeecad naxariis daro ah wuxuu diyaar u ahaa inuu weeraro, burburiyo wax kasta oo ka dhigaya socdaalkiisa mid aan raaxo lahayn. Isaga oo dariiqa maraya ayuu arkay god dabagaale. Cali ayaa ka carooday inuu arko god ku soo food leh jidka bartankiisa oo dabagaalayaashii yaryar ay ku tartamayaan sidii ay cunto ugu soo celin lahaayeen. Cali isagoona ka labalabeen ayuu seeftiisa ku dhuftay godkii dabagaalaha. Cali waxa uu soo gaaray jiinka, waxa uuna go'aansaday inuu istaago si uu biyo u cabo. Waxa uu arkay qooley ku dawaalanaysa meel u dhow. Waxay u ekaayeen kuwo aad u gaajeysan oo qaylinaya una dabarsanaya cunto. Cali ayaa sidoo kale tuuray dhagaxyo si ay uga baqaan shimbiraha. Isagoo qoslaya misna ku mahadsanaya ayuu waxa uu yidhi, weli waan cabayaa biyaha oo ma ku dhiiran tahay inaad timaadid adigoo cunto iga baryaya. Markii uu keynta dhex maray, Cali waxa uu arkay buul shimbireed oo geed ku yaala oo ay qoys ku baashaalayaan. Waa uu caraysnaa balse socdaalkiisa ayuu iska sii watay. Si shil ah ayaa laan yar oo buul shimbireedka ka mid ah ay madaxa kaga dhacday. Isaga oo ka caraysiinaya shimbiraha ayuu ku yidhi, ma ku dhiiran tahay inaad idhib? Cali ayaa seef la soo baxay si uu buulka shimbirta uga burburiyo, taasoo keentay in qoysku shimbiraha rabshado sameeyaan. Nasiib wanaag, ukuntii waxa ay ku dhacday cawskii, dhammaantoodna waa uu kala buriyay. Labada shimbirood ayaa aad u carooday, si joogto ah ayayna u weerareen. Isaga oo qosolkiisa iska sii wata ayuu waxa uu la kulmay weerar, taasoo keentay inuu isla markiiba ka baxsado halkii uu ku sugnaa. Aakhirkii, Cali waxa uu gaaray halkii uu rabay. Si akhlaaq darro ah ayuuna albaabkii u garaacay, isagoo aad u qaylinaya, kuwa qasriga ilaalinaya, iga fura albaabka, ha isugina, haddii kale albaabkan jebin doonaa. Wax ma maqashiin miyaa? Markii albaabka si tartiib ah loo furay ayaa waxaa soo muuqatay naag aad u fool xun. Waxay ku tiri, halow, soo dhawaaw, aniga meeshan ka taliya, sideen kuu caawin karaa? Isagoo aad u qaylinaya ayuu waxa uu yidhi, dhagool miyaa tahay? Maxaad albaabka iiga furi weyday? Intaa baan taagnaa. Waxaan ahay Cali. Waxaan halkan u joogaa inaan badbaadiyo amiirada oo aan noqdo boqorka. Duqdii waxay ku tiri, dabcan, laakiin marka hore waa inaad ka gudubtaa 3 imtixaan. Maxaa caqabad ah oo aad igula tartami doontaa? Dhaqso oo ii bilaaw imtixaanka, ayuu ku yidhi. Muhiimadda kaliya ee aan leeyahay waa inaan badbaadiyaa boqorada si aan u noqdo boqorka halkan. Duqdii ayaa ku tiri, inakeen. Cali mid ka mid ah caqabadaha waa uu dhaafi waayay, waxa uuna dib ugu soo laaban waayay guriga. Maalmo badan ayuuna sugayay aabihii, balse ma uusan arkin soo laabashada wiilkiisa. Aabihii aad ayuuna u warwaray. Aabe, waxaan doonayaa inaan aado halkaas si aan u soo helo walaalkay.
meesha uu ku sugan yahay. Fadlan ii oggolow. Aabbihii ayaa ku yidhi, Maya, meesha aad ayay u khatar badan tahay. Walaalkaa waa uu soo laaban waayay, mana rabo inaan waayo wiilka kaliya ee ii haray. Fadlan ha ii walwalin. Waa hubaal walaal waan heli doonaa oo nabad baan ku soo laabanaynaa. Aabbihii ayaa ku yidhi, laakiin ma hayo waxba. Waxa uuna ku yidhi, kaliya waxaan doonayaa inaan qaato rootigan. Aabbihiina waa uu oggolaaday. Si farxad ku dheehan tahay ayuuna u macsalaamay.